maanta waxaan baraynaa xisaab laba god ah sida la iskugu daro 12 lagu daray 12 waxay la mid tahay hadda sheeg 12 lagu daray 12 maxay la mid tahay adiga ayaa lagu weydiiyey waxa lagu xisaabta ka shaqee waxaad uga shaqeynaysaa sidaan waxaan sameynaynaa awal xisaabta waa la is ag dhigi jiray laakiin hadda waa la is hoos dhigayaa waxaan dhahaynaa hal baan qoraynaa labaan qoraynaa 12 halka waxaan ku hoos qoraynaa halka kaleeto hoostiisa labadana waxaan ku hoos qoraynaa labada kale hoosteeda marka kadib waxaan sameynaynaa hoos ayaan ka xariiqaynaa qalin baan marinaynaa xisaabtaasi 12 la hoos dhigay 12 hoosta laga xariiqay xisaabtu maxay tahay waynaan sheegnaa xisaabta nooca ay tahay waa lagu daray xisaabta calaamadeeda ayaa lagu ogaadaa waxay tahay waana lagu daray 12 lagu daray 12 waxaan sameynaynaa labo ayaa waxaan ku daraynaa labo lagu daray labo maxay la mid tahay 4 haye waxaan dhahaynaa haddana dhinaca kaleeto 1 ayaa waxaan ku daraynaa 1 maxay la mid tahay 1 markii lagu daro 1 waa maxay la mid tahay labo haddaba 12 markii lagu daro 12 waxay la mid tahay 24 kor haddaba 12 lagu daray 12 maxay la mid tahay su'aashina la weydiiyey 12 oo lagu daray 12 maxay la mid tahay waxay la mid tahay 24 12 markii lagu daro 12 waxay la mid tahay 24 hagaag 13 lagu daray 13 lagu daray 13 maxay la mid tahay adiga lagu weydiiyey 13 markii lagu daro 13 maxay la mid tahay xisaabta ka shaqee baa lagu yiri 13 lagu daray 13 maxay la mid tahay 13 markii lagu daro 13 waxay la mid tahay sheeg hadaba sidii hore aan taa uga shaqeyn ayadaan uga shaqeynaynaa waxaan sameynaynaa hal ayaan qoraynaa 3 ayaan qoraynaa waa 13 halka hoostiisa hal baan ku qoraynaa saddexda hoosteedana 3 ayaan ku qoraynaa diilin ayaan hoosta ka xariiqaynaa 13 la hoos dhigay 13 oo diilin hoosta laga xariiqay xisaabtaas maxay tahay lagu daray way xisaabtu calaamadeeduna waa lagu daray hadaba waxaan sameynaynaa 3 ayaan waxaan ku daraynaa 3 ku dar maxay la mid tahay 3 markii lagu daro maxay la mid tahay 6 okay hadaba waxaan dhahaynaa haddana dhinaca kale 1 ayaa waxaan ku daraynaa 1 markii lagu daro 1 maxay la mid tahay 2 haddaba 13 markii lagu daro 13 waxay la mid tahay 26 kor 13 lagu daray 13 waxay la mid tahay 26 13 markii lagu daro 13 waxay la mid tahay 26 hagaag haddana 14 lagu daray 14 maxay la mid tahay adiga lagu weydiiyey 14 markii lagu daro 14 maxay la mid tahay haye waxaan sameynaynaa marka hoos ayaan ku qoraynaa hal iyo 4 waa 14 haddaba waxaan sameynaynaa haddana halka ayaan waxaan ku hoos qoraynaa halka kale 4 ayaan waxaan ku hoos qoraynaa 4 kale hoosta ayaan ka xariiqaynaa 14 la hoos dhigay 14 oo hoosta laga xariiqay xisaabtaasi maxay tahay waa lagu daray waxaan ku qoraynaa calaamadii lagu daray halka markaan marayna ayaan waxaan sameynaynaa
afar ayaan waxaan ku daraynaa afar. afar lagu daray afar maxay la mid tahay? afar lagu daray afar maxay la mid tahay? afar lagu daray afar waxay la mid tahay 8. haddaba dhinaca kale hal lagu daray hal. hal markii lagu daro hal maxay la mid tahay? hal lagu daray hal waxay la mid tahay 2. haddaba 14 markii lagu daro 14 waxay la mid tahay 28. kor 14 lagu daray 14 waxay la mid tahay 28. jawaabtu waa 28. haye 11 lagu daray 11 maxay la mid tahay? adiga lagu weydiiyey. 11 markii lagu daro 11 maxay la mid tahay? 11 lagu daray 11 maxay la mid tahay? haye haddaba sidii kale ayaan uga shaqaynaynaa. 1 ayaan qoraynaa, haddana 1 kale ayaan qoraynaa. 2 1 oo saa u qoran markii la akhriyo maxay? waa 11. 1ga hore waxaan hoostiisa ku qoraynaa 1ga hore, 1ga dambena waxaan hoostiisa ku qoraynaa 1gii dambe. marka 11 iyo 11 saasaan isku aadinay. waxaan samaynaynaa hoosta ayaan ka xariiqaynaa 11 la hoos dhigay 11 oo hoosta laga xariiqay. xisaabtaasi waa maxay? waa maxay magaceedu? magaceedu waa lagu daray, calaamadeeduna waa lagu daray. halkaan markaan marayna ayaan waxaan samaynaynaa 1 ayaan waxaan ku daraynaa 1. 1 lagu daray 1 maxay la mid tahay? 2. haddaba waan garanay halkaas. haddana dhinaca kaleeto waxaan dhahaynaa haddana 1 ayaan waxaan ku daraynaa 1 waxay la mid tahay 2. haddaba 11 markii lagu daro 11 waxay la mid tahay 22. haye kor ayaan ka shaqaynayaa. 11 lagu daray 11 waxay la mid tahay 22. 11 markii lagu daro 11 waxay la mid tahay 22. 10 lagu daray 10 waxay la mid tahay, adiga lagu weydiiyey sheeg. 10 markii lagu daro 10 maxay la mid tahay? 10 markii lagu daro 10 maxay la mid tahay? haye haddaan ka shaqaynaynaa waxay la mid tahay haddaan sheegaynaa. waxaan leenahay hal iyo eber waa 10. haddaba waxaan samaynaynaa halka hoostiisa waxaan qoraynaa halka kale, eberta hoosteedana waxaan ku qoraynaa eberta kale. halkaan markaan marayno 10 hoostiisa waxaan ku qornay 10kii kaleeto, hoosta ayaan ka xariiqnay. haddaba 10 la hoos dhigay 10 oo hoosta laga xariiqay waa meesha ku qoran. maxay tahay xisaabtaasi? xisaabtaasi waa ku dar. waxaa la rabaa marka inaan ku qorno calaamadda ku darta. markii ku dar la arko xisaabtaasi waa calaamadeeda ayaa kala sheegaysa cidda ay tahay. waa ku dar. waxaan samaynaynaa eber ayaan waxaan ku daraynaa eber. eber lagu daray eber maxay la mid tahay? eber markii lagu daray eber waxay la mid tahay eber. haye 1 lagu daray 1. 1 markii lagu daro 1 maxay la mid tahay? 1 lagu daray 1 waxay la mid tahay 2. haddaba 10 markii lagu daro 10 waxay la mid tahay 20. kor ayaan ka shaqaynayaa. 10 lagu daray 10 waxay la mid tahay 20. 10 markii lagu daro 10 waxay la mid tahay 20.
toban lagu daray toban waxay la mid tahay 20 haddaba haye 12 lagu daray 13 maxay la mid tahay adigu sheeg 12 markii lagu daro 13 maxay la mid tahay 12 lagu daray 13 maxay la mid tahay haye hoos ayaan uga shaqeynayaa 1 2 12 halka hoostiisa waxaan ku qoray halkii kaleeto labada hoosteedana waxaan ku qoray 3 okay markaas halka markaan marayo maxaan sameynayaa hoosta ayaan ka xariiqayaa 12 oo la hoos dhigay 13 oo hoosta laga xariiqay xisaabtaasi magaceeda waxay sheegaya calaamadeeduna waa lagu daray xisaabtu waa lagu daray 12 markii lagu daro 13 weey haye haddaba waxaan sameynaynaa marka 2 lagu daray 3 2 markii lagu daro 3 maxay la mid tahay 2 lagu daray 3 waxay la mid tahay 5 2 markii lagu daro 3 waxay la mid tahay 5 okay 1 lagu daray 1 maxay la mid tahay 1 lagu daray 1 waxa ay la mid tahay 2 haddaba 12 lagu daray 13 waa 5 iyo 20 kor ayaan ka shaqeynayaa 12 lagu daray 13 waxay la mid tahay 5 iyo 20 12 markii lagu daro 13 waxay la mid tahay 5 iyo 20 6 iyo 10 lagu daray 12 maxay la mid tahay adiga lagu weydiiyey 6 iyo 10 lagu daray 12 maxay la mid tahay 6 iyo 10 lagu daray 12 maxay la mid tahay 6 iyo 10 lagu daray 12 maxay la mid tahay haye haddaan ka shaqeynayaa hoos ayaan uga shaqeynayaa 1 6 iyo 10 ayaan qoray halka hoostiisa waxaan ku qoray halka kale 6da hoosteedana waxaan ku qoray 2 6 iyo 10 waxaa hoosteedaan ku qoray 12 kadibna hoosta ka xariiq 6 iyo 10 la hoos dhigay 12 oo hoosta laga xariiqay xisaabtaasi waa maxay lama yaqaan laakiin markii calaamadu ay yeelato baa la sheegi karaa xisaabtaasi waxa ay tahay waa lagu daray calaamadii lagu daray baa waxay sheegtay inay tahay lagu daray 6 lagu daray 2 6 markii lagu daro 2 maxay la mid tahay 6 lagu daray 2 maxay la mid tahay 6 lagu daray 2 maxay la mid tahay 6 lagu daray 2 waxay la mid tahay 8 hagaag 1 lagu daray 1 maxay la mid tahay 1 lagu daray 1 maxay la mid tahay 1 lagu daray 1 waxay la mid tahay 2 haddaba 6 iyo 10 lagu daray 12 waxay la mid tahay 28 kor ayaan ka shaqeynayaa 6 iyo 10 lagu daray 12 waxay la mid tahay 28 6 iyo 10 lagu daray 12 waxay la mid tahay 28 5 iyo 10 lagu daray 3 iyo 10 maxay la mid tahay adiga lagu weydiiyey 5 iyo 10 lagu daray 3 iyo 10 maxay la mid tahay 5 iyo 10 lagu daray 3 iyo 10 maxay la mid tahay haddaba aan ka shaqeeyo hoos ayaan ku qorayaa
hal shan shan iyo toban halka hoostiisa waxaan ku qoray halkaas shanta hoosteedana waxaan ku qoray 3 marka waxaan dhahayaa 15 oo la hoos dhigay 13 kadibna maxaan sameynayaa hoosta ayaan ka xariiqayaa 15 oo la hoos dhigay 13 oo la hoosta laga xariiqay xisaabtaasi waxay tahay lama yaqaan marka waxa lagu ogaanayaa marka calaamadda ay wadato calaamadda wayna u yeelaa lagu daray xisaabta lagu daray ay noqoto 15 lagu daray 13 maxay la mid tahay waxaan sameeynaa hadda ayaan geliyaa shaqadii bilaabaya waxaan dhahayaa 5 lagu daray 3 5 markii lagu daro 3 maxay la mid tahay 5 lagu daray 3 maxay la mid tahay 5 lagu daray 3 waxay la mid tahay 8 haye hal lagu daray hal maxay la mid tahay hal markii lagu daro hal maxay la mid tahay 2 hal lagu daray halna waxay la mid tahay 2 haddaba 15 markii lagu daro 13 waxay la mid tahay 28 kor ayaan ka shaqeynayaa 15 lagu daray 13 waxay la mid tahay 28 15 lagu daray 13 waxay la mid tahay 28 15 lagu daray 12 maxay la mid tahay adigu sheeg 15 lagu daray 12 maxay la mid tahay 15 lagu daray 12 maxay la mid tahay 15 lagu daray 12 waxay la mid tahay waxaan sheegi karaa markii aan ka shaqeeyo waan ka shaqeynayaa waxaan leeyahay hoos ayaan ku qorayaa hoos ayaan ku shaqeynayaa waxaan leeyahay hal 5 15 waxaan leeyahay hal ayaan waxaan ku hoos qorayaa halka kale shanta hoosteedana waxaan ku qorayaa 2 waa isku aadinayaa 15 ayaan waxaan ku hoos qoray 12 kadibna waxaan sameynayaa hoostaan ka xariiqayaa hadda waxaan dhahayaa 15 oo la hoos dhigay 12 oo hoosta laga xariiqay xisaabtaasi magaceeda lama yaqaan marka waxaa lagu ogaanayaa markii aan u yeelo calaamadeeda oo ah lagu daray hadda xisaabtu waa 15 oo lagu daray 12 oo hoosta laga xariiqay jawaabtana hoos lagu qoray waxaan dhahayaa 5 lagu daray 2 waxay la mid tahay 5 markii lagu daro 2 maxay la mid tahay 5 lagu daray 2 maxay la mid tahay 5 lagu daray 2 waxay la mid tahay 7 haddaba haye dhinaca kale haddana hal lagu daray hal muxuu la mid yahay hal lagu daray hal maxay la mid tahay hal lagu daray hal waxay la mid tahay 2 haddaba 15 markii lagu daro 12 waxay la mid tahay 27 kor ayaan ka shaqeynayaa 15 lagu daray 12 waxay la mid tahay 27 16 lagu daray 13 waxay la mid tahay adigu sheeg 16 lagu daray 13 waxay la mid tahay sheeg 16 lagu daray 13 maxay la mid tahay 16 lagu daray 13 waxay la mid tahay hoos ayaan uga shaqeynayaa halkii ayaan qoray 6dii ayaan qoray hal iyo 6 marka aan qoray saa u qoray waxay yihiin 16
halka hoostiisa waxaan ku qoray halkii kale 6 hoosteedana waxaan ku qorayaa 3 16 ayaan waxaan ku hoos qoray 13 hoostan ka xariiqay 16 oo la hoos dhigay 13 oo hoosta laga xariiqay baan qoray laakiin lama yaqaan xisaabtaas waxay tahay waxaa lagu ogaanayaa markii loo sameeyo calaamadii baa loo sameeyey waana lagu daray xisaabtu waa 16 oo lagu daray 13 oo hoosta laga xariiqay kadibna hoos ayaa lagu qorayaa jawaabta saxda ah hadda waxaan dhahaynaa 6 lagu daray 3 6 marka lagu daro 3 maxay la mid tahay 6 lagu daray 3 maxay la mid tahay 6 lagu daray 3 waxay la mid tahay 9 6 lagu daray 3 waxay la mid tahay 9 haye dhinaca kale haddana 1 lagu daray 1 markii lagu daro 1 maxay la mid tahay 1 lagu daray 1 maxay la mid tahay 1 markii lagu daro 1 waxay la mid tahay 2 haddaba 16 lagu daray 13 waxay la mid tahay 29 kor ayaan ka shaqeynayaa 16 lagu daray 13 waxay la mid tahay 29 16 markii lagu daro 13 waxay la mid tahay 29 16 lagu daray 13 waxay la mid tahay 29